gabdho badan ayaa isoo weydiiyey iyo wiilal qofkaan la sheekaysanayo see ku ogaan karaa inuu daacad yahay iyo in kale, inuu guur iga rabo iyo in kale. maba ogaan kartidba, been baa iskugu sheekaysa. kaale dee qalbigiisa intaad kala jeexdo gabadha ama ninka, intaad qalbigiisa kala jeexdo kaalay soo ogo waxa dhexdiisa ku jira, ma ogaan kartid. 5 sano kula socdaa, 3 sano kula socdaa, 4 sano qofkan sheekaysanaysaan, inuu daacad yahay iyo guur kaa rabo in kale ma ogaan kartid nafa. mid kalena weli waan kugu darayaa, qofku wiil ha noqdo gabar ha noqdo, isagoon ku rabin oon ku jeclayn, jacaylka ka u macaan wuu kula jili karaa. hadda qalbiga kaama jeclaa, laakiin qaab kaama maarmi karo, qaabka kuula isagu dantuu doonaba ha ka yeesho, gabadhan dantay doontaba ha ka yeelato, taana weliga ha rumaysanin. so qofka hal mar keliyaad ogaan kartaa inuu qofkani daacad yahay waa markuu hadduu nin yahay uu yidhaahdo diyaar baanahay reerka iige. gabadhu hadday ay tahay inay tiraahdo diyaar baanahay reerka waa u tegi kartaa. markaa keliyaad waxaad ogaan kartaa qofkani ma daacad baa mise ma. laakiin 2 sana wada socod. hadda su'aalaha dhan waxay ka dhasheen fiidiyadii hore yaamii hore aan soo geliyey ee ka hadlayay dhalinyarada iyo sheekadooda iyo guurka iyo arrimo ku saabsanaa. gabdhaha waxay ii soo direen waxaan nin wada socon ama rag 10 sano 12 sano, can you imagine? 5 sano fiidiyoyada ka hor 5 sano waan maqlay wax dad wada socda, laakiin ka hor fiidiyoyada ka hor dadku le 8 sano wada socona waan kala harnay, 10 sano kala socona waan wada harnay. dakhaladka waa adiga leh qofkan maxaa 2 sano xitaa maxaa ku daba geliyay. haddaad aragto bishii koowaad inuusan diyaar ahayn, ta labaad, ta saddexaad, ta sanadkood ta iskaga har. haddaad sidaa ku rabto aad leedahay saasaan ku rabaana, oo gabar iyadaa ka hartay ama nin isagaa ka hara tabtaasaan ku rabaana, 5 sano markuu intuu ku jiido uu cidlo kaaga dhaqaaqo, oohintaada hadhow hanala soo aadin, meelaha kale la aadin adeeray. khayr badan ma ku rujineen.